kulanti waxna wanaagsan saaxiibayaal halkan waa channelka Gargaar Media Group qodobada maanta aan idinaynan waxa ugu doorkaroon golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo isla xisaabtan ku bilaabay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya Puntland oo amar ku bixisay in la xiro xafiisyo ay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ka furteen deegaanada oo ka armiya maamulkaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka oo ka falceliyay go'aankii ka soo baxay maamulka Puntland xukuumadda Soomaaliya oo la sheegay inay joojisay dacwadii ay dhawaan gudbiyeen xisbiga himilo qaran IMF oo si rasmi ah u shaacisay inay taageerayso qorshaha dowladda Soomaaliya oo hub iyo saanad militari geysay Galmudug iyo Al-Shabaab oo sheegtay in sarkaal sare ay ku dishay magaalada caasimadda Muqdisho qodobadan iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawan doontaan haddii aad ku cusub tahay channelkan xogta xaqiiqda fadlan subscribe ka noqo oo furo gambaleelka lana wadaag asxaabtaada kale وهجاك إنه كوبيلونو دولة فدرالك Soomaaliya ayaa la sheegay in hub iyo saanad military ay geysay Galmudug dowladda dhexe ayaa lagu soo waramayaa in hub iyo saanad military ka dejisay degmada Hobyo ee gobolka Mudug wararka ayaa waxay sheegayaan in hubkaasi aad u fara badan ay dowladdu doomo dheereeyaha ay ku geysay degmada magaaladaasi kuwaas oo hub ka qaaday degmada magaalada Muqdisho sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in hubkaasi waliba saanada military loogu talagalay ciidamada xoogga qaybtooda 12aad ee ka howlgala deegaanada Galmudug lama oga sababta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay hubkaasi u geysay halkaasi balse wararka ayaa waxay sheegayaan in loogu talagalay howlgalo ka dhan Al-Shabaab oo ka bilaaban doona gobolada Mudug iyo sidoo kale Galgaduud arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed uu ka socdo magaalada Dhuusamareeb oo lagu qaban doono doorashada maamulka Galmudug dowladda Soomaaliya oo dhawaan magacaawday guddiga farsamada maamulkaasi ayaa wada qorshihii ugu dambeeyay ee dhismaha Galmudug oo loo dhan yahay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay isla xisaabtan ku bilaabayaan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murtad Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in toddobaad kasta maalinta Axada la qorsheenayo in golaha wasiirada ay hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka gudoomiye Mursal ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada ay su'aalo weydiin doonaan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo la xiriira shaqooyinkoodii sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in qorshaha la doonayo in su'aalo lagu weydiinayo golaha wasiirada uu keenayo isla xisaabtan daafuran iyo sidoo kale in la saxo waxyaabaha qaldan ugu dambeyntii gudoomiye Mursal ayaa gudiyada baarlamaanka ka dalbaday inay la shaqeeyaan wasaaradaha xukuumadda ee shaqadu kala dhaxayso si golaha uu la socdo howlaha socda inta aan soo sheegnay sida daradeed mudanayaasha sharafta leh waxaa dhammaanteen waajib nagu ah inaan u hogaansanaano waajibaadka uu nafarayo dastuurka iyo xeeroosaadka golaha si aan u fulino howlaha la inoo igmaday haddaba waxaa lagama maarmaana in dhammaan mudanayaasha ay xil iska saaraan oo soo xaadiridda iyo dhowrista waqtiga fadhiyada golahu iyo midda guddiyada soo xaadirista aad ay muhiim u tahay kalfadhigan waa kalfadhiga lixaad shaqooyinka noo yaalana aad ay u ballaarayeen marka soo xaadirista aad ay muhiim noogu tahay khaasatan labadan sharciyoona laga sugayo waddankan doorashadiisa annagaana looga fadhiyaa meeshaan aadin lahayn marka waxay la tahay kulley dad badan oo baarlamaanka ka tirsanaa xildhibaano badan way fadhiyaan baarlamaanka waxaa hore u jiri jiray idinkoo dhan waa la socotaana sanadka ugu dambeeyay in la iska kala tago oo ninba meel uu iska aado laakiin waxay la tahay sanadkan shaqaa noo taal shaqadaas daraaddeed marka inaan soo xaadiridda aan u dhowrno sidaas oo kale waxaan faraynaa habdhowriyaasha in si joogto ah ugu soo gudbiyaan maxdarka tirada xildhibaanada fasax ku maqan kuwa fasax la'aanta ku maqan iyo kuwa ku maqan shaqo tan kale wasiirada xildhibaanada markay shaqo ku maqan yihiin maahane inta kale waxaan rabnaa inay fadhiyaan waa
tirada oo wasiirada ah waa tiro aad u weyn ma yar tiro yar maaha marka waxaan ka codsanaynaa mar walba inay fadhiyaan si kooramka mar walba uu buuxo waad ku mahadsantihiin. dhanka kalena Puntland ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in guud ahaanba la xiro xafiisyo ay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ka furteen deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu amray in la xiro xafiisyada mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka furteen deegaanada Puntland ayaa waxa ay sheegtay in xafiisyada ay deegaanadooda ka furteen wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya aan wax wada lagala sameynin isla markaana ay yihiin kuwa sharci daraa. sidoo kale Puntland ayaa waxa ay amartay in si degdeg ah loo xiro xafiisyo degmooyin ka tirsan maamulkaasi ugu furan wasiirada qorsheynta iyo sidoo kale shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya. waxaana ay Puntland sheegtay inay muhiim tahay in marka hore ay habooneed in lagu soo wargeliyo in xafiisyadan ay ka furtaan wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland. ugu dambeyntii maamulka Puntland ayaa faray mas'uuliyiinta kala wasiir Jamaal iyo sidoo kale Sadiq Xirsi Warfaa in xafiisyo kale ilaa iyo amar dambe aysan ka furi karin deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland. dhanka kalena xildhibaan Cabdiraxmaan Dhowreha oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in go'aankii lagu xiray xafiisyada wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya uu yahay mid sharci dara. sidoo kale Cabdiraxmaan Dhowre ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ka dalbaday in ay dib ugu laabato go'aankii lagu xiray xafiisyada wasiirada qorsheynta iyo sidoo kale shaqada iyo shaqaalaha ee Jamaal Maxamed Xasan iyo sidoo kale Sadiq Xirsi Warfaa. al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda dil saacadihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. war ka soo baxay al-shabaab waxa lagu sheegay in Saybiyaano ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Bangarafta Soomaaliya. al-shabaab ayaa magaca sarkaalkaasi ku sheegay Muuse Abuukar Maxamed Nuuro waxaana ay tilmaameen in uu wada shaqeyn la lahaa ciidamada Mareykanka. sidoo kale waxa ay sheegeen in sarkaalkaasi uu Africom u sahminta goobaha weerarada habeen-dheelmaadka ah lagu qaado ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhinaca kale ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya. dilkan ayaana qayb ka noqonaya dilal qorsheysan oo maalmihii la soo dhaafay siyaabooyin kala duwan ugu dhacayay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. guud ahaan intaasi ayaan ku soo afmeerayaa wararkii ugu dambeeyay oo aad kala socoteen channelka Gargaar Media Group. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe ka noqo furo gambaleel kalena wadaag